munaasabadan oo ahayd mid uu ku shaacinayay musharax wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi ayaa shalay gelinkii dambe waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana munaasabadan kasoo qayb galay saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale intay socotay munaasabadda hadaljeedinta ayaa waxaa madasha laga jeediyey hadallo lagu muujinayay misna loogu codsanayay inuu kursigan uu mudan yahay musharax ugaas xasan cabdi inkastoo beeshiisa ay ka dhawaajiyeen wax badanna uu soo qabtay isagoo aan kursiga hayn qaar ka mid ah waxgarad saraakiisha ciidanka haween iyo martidii kale ee kasoo qayb gashay ayaa dhankooda sheegay in musharax ugaas xasan uu yahay shakhsiga ugu mudan ee kursigan ku mateli karo ugaaska langan horta bas kasaanay ona kasaano da'ayaro la oonlew ana banaamay maana amanteen magaalada gali madiisanta hirka kahay mar gaar baydhabo wala siisada hoob ku jiraan iyo saarada jiri ugaaski maalinaga hadlaay bijaan ama ka barnaal jar hanun nugla ma ka barnaal jar langolos ku reeba hadalji holos ku reeba annakaay kasaase marka way balaha mudane heldhawaan hadhaw tolka ka jeeri maalin kasta adoo qarashna ku biina yakin ko yahay meelal kurtikin ko yahay daraadan goorti geekan goorti hatan hab goortikin ko yahay meelal sadki ko yahay dadka geeka faano ay tahan kulli all waan u takin fadhiya ciidanka gabrole dhalinyarada leh odayaalka leh saraakiisha leh dableyska leh alafleyta leh adikii la dhardeen adikii heliyo hayan ka qanacsano meel kasta oo saaton keen heliyo hayan hakin gurmadan hatab in kooya tarheekin kooya lagna ma la reemaynin kuurta makarna lagu dhaalisay makarna wala dhibtiin dadna deegaan laka markaa shaqan wala shaqada deegas hobad geek meel raas lanko wasaaradda jeeyta masaj meel raas meel haydo jeeyt bas way inta sax kiifalan wala qobati dadka horna wala qobati koonfur galbeed sida hato la sheegay oo ka dhawaajo kala bakin oo bustiiska haas yaa kula balawti heerkan aad deersidi madaxtooyada talabtaray meel raas barhan adoo alanka babada la aragay waa ku soo dhaweynayaa ugaaskayga xasan cabdi marna wasiirkayga haddana siduu jecel yahay inuu ilaahay u yeelo xildhibaankayga macali weyne waxaan inga codsanayaa qofka hadduu wax ku siiyo inaanan la qarinin hadduu waxba kuu qabanin aan la qarinin hadduu wax kuu qabtana in la sheego reemay weelasaana ka faraxsano kulli lambadana kursigu fadalay oo roogo jar kulli lanki ilaahay alafo mooshin ilaahay og may weelasaana oo baadi ilaahay kin alafo adnagad ugaas xasan cabdi oo ah musharaxa doonaya inuu kursigan ku guuleysto ayaa ballan qaaday inuu wax badan u qaban doono bulshadiisa haddii ay u ogolaadaan codkooda markaa waan doo ku alifaday kursiga roowki tabarto doranay ee dabadanaay garaadana lankasheeno korn ini aan ku daraho kursi weynaga weydiyo walaal oo tabada haayo ama langmale wala oo falado ini aan weydi artaasa siinka wari wali faday ilaahay walbiye wali ilaahay ku tuugay wala aan weydiyahay hadii khayr inka jara balaayib in ku koon dhabaatay in ku wajahan in ilaahay subhanahu wa ta'ala aan otolkay wada hela hadii musiiba aan ogayn caafimaadka gabe xubnaagay kaamila madan xilkaas hela ama kii kooyas aan lahan ilaahay wali ku tuugay in uu waafajin madii ana qiimay da'yarantay madii ana fiiri ani waqti badan oo malkimaad in qaanab ana haysada afartan walaago la ka dariya jaray 30 sano ama siyaasad ka jara kortaan qalbigay fiiri ya wali ha in batay in ana dhirida dadka dawladda ka jaray bulsho 70 jir 80 jir 90 jiro wali ha in batay in ana ka dhirida madana da'day fiiri ani waqti badan waana tolkay in adeega kor haysada ugu dambeyn dadkii halkan isugu yimaaday ayaa dhammaantood waxay isku afgarteen inay codkooda ay ku biirin doonaan musharax ugaas xasan cabdi kaasoo u muuqda shakhsigii samata bixin lahaa maxamed deeqsiir jito RTN TV baydhaba